بسم الله الرحمن الرحيم. نورتا دمان waxaan halka ka salaamayaa madaxda Awdal State meel jooganba iyo hawlnimada kale ee Awdal State ee kala jooga wadamada qurbaha iyo wadanka gudihiisa. Dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salaanta ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan wax yar ku dul istaago anigoo safar dheer anigoo magacaygu yahay Umar Ismaaciil oo safar dheer ugu maqnaa dalkii hooyo Awdal State especially magaalada madaxdiisii Boorama iyo deegaanada ku xeeranba. Safarka halkaan ku tagnay waxa uu ahaa safar dheer oo aad iyo aad u qiimo badan isla mar ahaantaana dadka reer Awdal ee halka joogaan ku baraarujinay inay leeyihiin maamul, inay leeyihiin calan, inay leeyihiin ciid. taasi oo ah tamaanta keentay in dadka reer Awdal ee ku nool guduhu ay maaragta ay sameeyaan ama ay ka hadlaan danahooda iyo waxay doonayaan. taasi saadaradeed waan waxaan rabaa kulanadii faraha badnaa la yeelanay bulshada reer Awdal intooda badan waxay noqdeen kuwa miradhala waayo waxa dareemaysaa qof kasta oo reer Awdal inuu diyaar u yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabto oo aanu diyaar u ahayn inuu maamulka Hargeysa u adeego. dadka u adeega maamulka Hargeysa waa dad yar oo kooban isla mar ahaantaana doonaya ummadda reer Awdal inay u duleeyaan cid kale. marka dadkaasi waxay rabaan kaliya waxa weeye inay dadkaasi dabadhilif ay ahaadaan inay daba joogaan cid kale halka maamulka Awdal State in uu shacabka reer Awdal ku dhiirigeliyo inay leeyihiin calan, inay leeyihiin mataqaana inay ummadda reer Awdal la horumariyo halka dabadhilifka iyo dadka u shaqeeya maamulka Hargeysa ay doonayaan mar walba in dadka reer Awdal ay dadka la hoos joogaan, in dadka reer Awdal ay u saacbiyaan ama durbaanka u tumaan ummad kale oo rabta inay horumarto halka ummadda reer Awdalna la rabo inay dib u dhacdo. waayo waxa dareemaysaa 23 sano ee jirtay maamulka Hargeysa uu jiray dadka reer Awdal waxyaabihii u qabsoomay dad eegto intooda badan iyo waxay uga qabsadeen wax maamulka Hargeysa u qabtayna maaha. haddii laakiin dadka loo geliyo ama xisaabtan mataqaana qaldan ma fikir qaldan dadka lagu abuuro waa tamaanta keentay in jaamacadda Amuud oo dadka reer Awdal ay waxyaabihii ay aasaasteen ay kamid tahay in markasta oo qalin jabin jirto loogu yeero nin ka socda Hargeysa oo isku sawiro si uu beesha caalamka u tuso inay wadanka ka jiraan oo maamul yihiin oo ay dadka la rabaan nolol wanaagsan. waxaad aragteen in dariiq hadii la furayo waxaad aragteen dariiq ay reer Awdal dhisteen in lagu yeerayo nin mataqaana Hargeysa ka yimid. waxaad aragteen iskuul ay reer Awdal dhisteen in ninkaas ku sawirayo. waxaad aragteen wanaag ay reer Awdal sameysteen dhammaantoodba waxay reer Awdal sameysteen in dad kale ay isku sawiraan oo ay caalamka u tusaan in iyagu waxaan u sameeyeen. anigu waxaan aaminsanahay ummadda reer Awdal dawladii Soomaaliya waxba may qaban. dawladda maamulka Hargeysa ka jira maanta sheeganayana wax mataqaana ummadda uu wax u qabanayana waxba uu qaban. mid wax u qabtay oo reer Awdal dantoodu ku jirtaa ma jirto. ummadda reer Awdal dantoodu waxay ku jirtaa inay iyagu isku tashadaan oo ay aayahooda ka tashadaan isla mar ahaantaana ay iyagu wax ay doonayaan ay sheegtaan. horasaan ugu sheegnay gudaha waxaan ku qabanay kulay shirar fara badan baan ku qabanay oo aan kula kulmanay bulshada qaybaha kala duwan. inta bulshada la kulmanayna waxaan ka qaadanay mataqaana sarfii baan ka qaadanay dadka reer Awdal waxay rabaan iyo rayigoodu soo yahay. dhalinyarada ka joogta maxaa kula deegaanada Awdal State iyo deegaanada ku xeeranba haday noqoto mataqaana Soomaaliya haday noqoto meelo kaleba waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan halganka, inay ka qayb qaataan bulshadooda wax u qabtaan. saadaradeed waxaan mataqaana halkan nigu rabaa inaan igu soo gudbiyo farxad waxaan ugu abuuray dhalinyarada reer Awdal ee ku nool gudaha oo dhammaantood intooda badan ay u taagayaan xaqa mataqaana ay u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan. waayo markay arkeen inankii ay jaamacadda ka wada baxeen oo marka uu jaamacadda ka soo baxo inankii kale maxaan ku dhahay beesha dhexe ahaa marka uu shaqo helayo halka inamada ka soo jeeda gobolada Awdal ayna shaqo helin. taasina ay noqotay sababta keentay in dadka reer Awdal ay tahriib iyagoo jaamacadda ku jira. markaan joogay nasiib darrada dhacay waxay ahayd in kalaas dan oo jaamacadda Amuud dhigan la waayay. waxaan loo sheegay kalaaskaas inay tahriibeen oo ay badda ay yiraahdeen inta kulli aan ku dhiman lahayn oo taqaana gaajadan waxaan noo qaatay anagu ku dhimanaa anagu tahriibana oo aan maxaan ku dhahay 50-50 in chance ka ay qaateen ama ay dhintaan ama ay noolaadaan oo noo wanaagsan ka raadsadaan mataqaana wadamada Yurub. taasina waa takaliftay mar kastaba inaanu maqalno
dadka ku halagmay mataqaana badaha marka dhibaatooyinka tariibka waxa dhiirigeliyay waxa weeyaan maamulka Hargeysa oo aan cid kale inay noqoto xoogolayn maamulka Hargeysa hadda u fiirsato waxa weeyaan waa maamul reer leeyahay waa maamul reer u shaqeeya nidaam reer u shaqeeya calan reer u shaqeeya halka reer awdal ay ka raadinayaan inay nidaam helaan nidaamka say ku dhigan reer awdal waxa weeye ilaa iyo aad midiyada daabkeeda hayso mooyaane Afrika waxa weeye cid maanta ku joojinaysa ma jirto cid Afrika maanta u joojinaysa ma jirto haddii aan midiyada daabkeeda haynin ama nidaam wanaagsan oo dadkan u ka jirin marka nidaam meesha ka jira ma jiro nidaamkaas waxa uu shaqeeyaa waxa uu adeegaa reer kaliya salaam waxaan ku soo qaadayaa waxaan tagnay magaalada Hargeysa xarunta Ethiopian Airlines baan waqti ka dooranay mataqaanaa ka sameysano mataqaanaa television waxaan kula kulanay halkaasi arday fara badan oo scholarship u socotay ardaydaasi waxay haayeen arday fara badan oo waalidkooda socdo ardaydaasi waxa loo raadinayaa flight taasi oo markaa anagu waxaan kula nagu waxaan soo jiitay bal inaan ardayda wareysano scholarship ka ku heleen iyo mataqaanaa sida ardayda faraha inta leegli iyo cid ay kala yihiin ardayda intooda waxaan noo sheegaan inay ka yimaadeen waxaan kula Hargeysa ka yimaadeen Hargeysa intooda ma badan yihiin isla mar ahaantaana ay yihiin dad scholarship u socda meel tigay halka reer awdal ayna warba ka waxa dhacayba ana hadii scholarship yimaado iyaga baxaya oo businesska ugu badan iyaga ku baxa reer awdal marka halkii ka taagan yihiin markaas yani yaa ku diyaariyay ninka u jooga Hargeysa jooga hadii uu xitaa scholarship ka la siiyo hal qof la siiyo waxa laga yaabaa ama say tahay waxa weeyaan uu iibinaya oo qof walaalkiya xitaa inuu ku baxo chance ka ma ogola wuxuu leeyahay wax iga galay ma jiro waa nin shaqo tag oo shaqaysanaya halkii boos ee scholarship ka haaba ninkii meesha jooga mas'uulkii reer awdal ma mataliya lahaa waxa weeyaan waxyaabahan la yaabay kamid tahay soo arkay waxa weeyaan ninkii mas'uulka haaba booskii iibinaya oo wuxuu leeyahay booskii waxa siinaya $15,000 baa siinaya scholarshipkii ama $20,000 baa siinaya waxa kale waxyaabaha kale oo kula kulmay boolan waxa kamid ah 18 May baa la qabtaa 18 May lacagta lagu qabto waxa laga ururiyaa shacabka reer awdal bacamtarka awdal baa bixiya barasaabka gobolka awdal jooga maanta guriga uu degan yahay kharashkiisa shacabka reer awdal baa bixiya maaha cashuur lacag laga soo qaado ku lagu bixiya maaha shacabka reer awdal mas'uuliyiinta meesha joogta ayaa bixisa halka hadii uu reer awdal joogi lahaana aan cid wax ka bixinin taasi waa waxyaabaha la yaabay kamid tahay Abdo Ayar waa ninka mataqaanaa waxaan la sheegay inuu yahay barasaabka gobolka awdal barasaabka gobolka awdal muddo ayuu hadda joogaa muddada uu joogayna waxa weeyaan wax fara badan buu ka qabtay maxaan ku raadaa danaha beesha dhexe wax badan buu ka qabtay waayo waxa weeyaan ma arkaysid maanta nin reer awdal oo ama sheeganaya mataqaanaa waxaan ku raadaa mabda kala aaminsan ama wax kala aaminsan oo la xirayo sababtan waxa weeyaan waxa loogu talagalay reer awdal in aan la maqlin codkooga in aan la maqlin cabashadooda in aan la maqlin waxay doonayaan qof kasta in lagu hayo low profile lagu hayo arintooda isla mar ahaantaana ay horgasho waxay doonayaan anoo Abdo Ayar waan koronay saddex jeer ayaa waxa isku dayay in la amar u fidiyay in la soo xiro kala oo mas'uul ahaa maxaa kula Fawzi Cabdiraxmaan Warfa waxa isku dayay in la soo xiro hase yeeshee oo u shaqeyn weyday sababta uu shaqeyn weyday waxa weeyaan isaga oo kow diyaar u ahaa inuu xiro number 2 isaga oo raba inuu arinta awdal state oo nagu ogaa oo ma nagu maqlay ama nagu ogaaba oo dawa cadeynay isagoo taagan reer awdal state nahay isbedelna aan wadanka ka rabno meeshana aan mataqaanaa inaan wax ka fulino ama taqaanaa hawlaan ka wadno isagoo u taab og ayaadna waxa ku dhici waa inuu xiro waayo waxa weeyaan hadii uu xiro magaaladu waxa weeyaan wax baa isbedelaya dadku 90% waxa weeyaan waa dad reer awdal state diyaar oo inay isbedel reer awdal la yimaadaan oo dii xaqooda ay ka hadlaan hase yeeshee afar tuug ama afar maxaan ku raayeen cabasho shaqaystay ay dadku ku xirayeen qala marka Abdo Ayar waxa uu yaray markaasi maxaan ku rag mutacalimiina oo joogta gobolka awdal waxaan uu ku yiri waxaan rabaa maadaama ninkan isku xigtihiin waxaan rabaa in ninkii maxaan ku ninkan noocaas magaca Umar la yiraahdo in ay keentaan si balde arinta uu wado aan wax uga ogaado Abdo Ayar markii la oran aragnay waxaan u sheegay Abdo Ayar inaan haniyo mas'uul ka awdal state ahaan jiray oo wasiir ka soo ahaan jiray maamul goboleedka awdal state imikana aan ahay xil aan ka hayn laakiin aan ahay nin activist oo mataqaana doonaya isbedel in lagu sameeyo dadka reer awdal in la sameeyo
cabdo markaasi waxa uu iga sheekeeyay ama uu ka sheekeeyay halgankii asram sidoo ku bilaabay iyo sidoo ku galay cabdo markaa waxa uu ii sheegay oo markaa araartiisa ku jirtay in waxaan ku raacay cabdo uu asramta galay isla mar ahaantaana markii ka horeeyay asramta uu intaan meesha gelin ama uu asramta uu gelin in uu dhigan jiray jaamacadda beeraha loo jeeday akraariga kulliyadda akraariga loo jeeday halkaasina wuxuu sheegay in World Bank ay lacag bixin jireen madaxweynihii dhintay Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo lacag ka jaray markaas oo yiri mataqaana arday lacagta oo lacag badan balasiya marka waa in dalka wax loogu qabto marka wuxuu $2 ayuu arday kasta ka jaray $2 baan wuxuu markaan arkay waxaan go'aansaday waxaan iri meeshan intaan hilib tabeelada loogu karinin waa inaan ka tagno marka anigu waxaan kamid ahaa ardaydii mataqaana beesha dhexe ama beesha asaar ee maalinta go'aansaday inay dalka ka baxaan kuna biiraan halgankii asana cabdo marka waxa kale oo uu sheegay inaan ka tanaasulo maamul goboleedka Awdal State hawshan u hayo aan ka soo biiro wax qabadka iyo horumarka ay wixii sida uu isagu sheegay in Soomaaliland ay gaadhay waayo wuxuu Soomaaliland walba bay gaadhay nabad baan haysanaa wax naga maqan jaamacadan dhiganaa waxaas oo dhan bay noogu buray hadii aad hal dad ku soo dad mataqaana si wadaan nidaamkan iyo systemkan Awdal State sheegay waxa kale oo uu sheegay cabdo in uu wuxuu sheegay in maamulka Hargeysa ka dhisan maanta ilaa Soomaaliland la yiraahdo dadka ku dulmaray inay yihiin beeshiisa oo habar jecla wuxuu habar jeclo ayaa maanta ugu cabasho xun maamulkan aanu maanta mas'uul ka ahay in gobolka Awdal joogo beeshayada ayaa ugu cabasho badan oo dhibaatooyin badan ay ku haystaan waxaan aaminsanahay inuu systemku inuu abuse kareynayo oo waxaanu rabnay يساميجان كل حين محن كل Somaliland هذا نهار جلنا هاي وحرمان ما نهلين بري عبدو مرة هذا كم كبحي روح كوري واي في عنها عبدو شيخ هو واري ولا سما كوري وصفي عنه وضل التهلكة أنا روح كل شيء جماعة كل سؤال إيش يكتبوا حتى لو $1 أيام كم كلاي محن كوري أسلمت أنا روح نور شيء إنك أبتيجي هو يدي لي إن كم كلاي Awdal State وحكى نور شيء عبدو in 950 waxaan ku raadaa tolkaya maalin la dilay ilaa haddana taariikhda Soomaaliland aan meel ka qornay waxa xustaan baan ku inta soo xus maalintii ay sanad wada soo gashay maalintii in lixla dhintay maalintii in kood bur dhintay maalintii hoorna soo galay maalintii ay sanad la aasaasay maalintii mutaqana wadanka la qabsaday inta soo xus baa la sameeyay baan ku waxa ii sheegtaa cabdooyo waxaan ku waxa ii sheegtaa inay jirto maalin dadka reer Awdal dadka reer Laascaanood ama Khartoum State iyo maxaan ku raacay Somaliland reer Maakhir aduu umadaha ku nool waqooyigu waxay wada leeyihiin inay jirto oo national day oo dadku ay leeyihiin dadka umada waqooyiga oo leedahay hadii Somaliland istaan kuri markaas Abduu su'aashii ka jawaabay waxaan leenahay 18 May baa leenahay Abduu ayaan waxaan sheegay mudane 18 May waxa iskale idinka ayaa iskale reer Awdal ma lahan kuri reer Awdal maalin ay leeyihiin ma jirto anu waxaan ku sheegay inaan ka imid dalka Canada dalka inuu yahay federaal caalam waxaan ku dhahdaa gobol kasta uu leeyahay caalam federaal uu leeyahay iyo caalamkii mataqaana waxaan ku dhahaa ka dhaxeeyay iyo caalam goboleed gobolka Awdal baan ku leeyahay ilaa hadda wali ma hayo hal maalin ama hal maalin la xuso oo reer Awdal xustaan ama taariikh u leeyihiin 18 May waxa laga sheekeeyay baan ku mataqaana halgankii asam soo gashay iyo dalka si loo qabsaday wali ma arkin baan ku leeyahay taariikhda in lagu xusayo nin reer Awdal oo laga hadlayo 18 May maanta la taagay marka waxaan sheegay Abduu Ayar inaan jirin wax wada leenahay oo dadka reer Awdal ay leeyihiin gaar u leeyihiin inaan jirin wax la wada leeyahay aanaysan jirin maamul iyo system yimiday oo mataqaana waxaan ku raacay gar adag lagu soo dhisay in loo leeyahay dadka reer Awdal baan u sheegay waxaan u sheegay markaasi in ayna jirin waxaasi dadka reer Awdal ay ka mid yihiin maamulka isla mar ahaantaasina ay dadka reer Awdal raali ku yihiin waxa systemka meesha ka jira waxaan u sheegay Abduu ma anigu waxaan ahaan ku dhigay reer Nuur waxay leeyihiin baan ku hal wasiir bay ku leeyihiin maamulkaas sheegayso habar jecel 6 wasiir bay ku leedahay maadaama habar jecel 6 wasiir ku leedahay anigoo reer Nuur ina aan hal wasiir ku leeyahay kadib bursiga inta leega kale reer Nuur waxaan aaminsanaan ku leeyahay habar jecel ka badan yahay marka waxaan ku yiri Abduu sheekhow arrinkaas sheegayso ee leedahay mataqaana habar jecel Abdulman aanu ma aaminsan baan ku leeyahay reer Nuur 6 wasiir ee sheegay baan ku leeyahay 6 wasiir inuu yeesho si habar jecel oo jilibka soo gaday bursi kamid ah inta la yeeshay baan ku
laakiin maanta dawmay dhicin waxa ku sheegay ma kulin saami qaybsiga Somaliland ama maamulka Hargeysa loo siman yahay ama gadabusiga ay ka taagan yihiin Arab iyo gadabusi waruna Arab intuu leeyahay marka Abdo waxaan u sheegay in aanan Somaliland oo aanay ahayn Somaliland taan doonay reewoy inaan wada nahay dalkan Somaliland waxaan ku 1960 waxa loo horreeyay waxa loo jiray British Somaliland baa loo jiray ku 1960 British Somaliland baa loo jiray wixii ka dambeeyay 1991kii waxay noqotay SNM Somaliland marka waxaan u sheegay Abdo inaan taariikhan wada leenahay oo reewoyga wada leeyahay ana jirin khaatumeysid maalinteedana gaar waxa uu leeyahay baan u sheegay ree awdal waxa uu gaar u leeyahay baan u sheegay meesha dhaxana waxa uu gaar u leeyahay baan u sheegay marka maalinta aynu isku baahano Abdo waxaan ku maalinta ay isku baahato ama gobolada waqooyi isku baahdaan dadka ku nool oo soo wada fariistaan oo maxay noo dan la yiraahdo oo dastuur la wada qofto oo wax la isku ogeey la sameeysto mooyaan inta ka horeysa waxaan wada leenahay mistaan kooy marka walaalayaal waxaan ii sheegayaa ree awdal ee gudaha ku nool ama dibadda joogaba halganka awdal state waa socdaa muddo dheerna waa jiray waana jiri doonaa hadda waxa jirta maxaan ku raacayaa hadda soo gabagabeeyo waxa leeyahay halganka awdal state ma aha mid dameeye maaha waa nuur u soo baxay dadka ree awdal isla mar ahaantaana dadka ree awdal rabaan inay ku gaadhaan himilooyinka ay leeyihiin rag ayaa mataqaanaa halkaa jira ama ka shaqeynaya hadafka awdal state har iyo habeen ka shaqeynaya oo doonaya nuurka la gaarsiiyo meel kasta oo dadka ree awdal ku nool yihiin si ay u helaan ama ay ugu naaloodaan waxa ay umadaha kalaba ay doonayaan awdal state ma aha wax mataqaanaa ku bilaabmay mataqaanaa caadifad ما هو قبل عمي مثلا قف دارين كله أو مثلا دد محن كلا يعني شخصي معها ودن عاموي أو مدر هي أوضل دون ين إنه وحكو قصدان SDA واد جرنستين ودارين كي SDA لسون من جوري سلام رهان ترى دلائر تمان تعيدون سو إنه مدة وحكو قبضه مركب واحد ليه هاي رج إيه الدمر عرور إيه عرور هي أوضل جودة إيه ديبت بإن جمعها لسقبصده وهل بين كلا جمر دلائر ومدة ree awdal la gaarsiiyo iftiinka la gaarsiiyo ayaa muhiim ah waayo ummadu hadii aynay lahayn siyaasad meel ma gaari karayso siyaasadeenu waa inay noqoto ama himladeenu ay noqoto awdal state inaan ka mid dhalino si aynu caruurteena iyo jiilka naga dambeeyaba ay ugu helaan nolol ka wanaagsan nolosha maanta dadka ree awdal ku nool yihiin nolosha dadka ree awdal maanta ku nool yihiin waan ognahay qofna kama qarsoona nolosha dadka ree awdal maanta ay ku nool yihiin waxay ku jiraan waa jeel bay ku jiraan dhaqaale looma ogola dekad looma ogola airport looma ogola yani wax loo ogol yahay ma jirto inta arrimaha intooda badanna waa wax ummadda ree awdal intooda baa gacmahooga ay ku sameeyeen oo waan ognahay Somaliland maamulka kasoo markii la sameeyay ree awdal way joogeen hase yeeshee waxay markaa ka hadlay ka talinayeen inay dadka jaarka uga heshiisiyaan maamulkan ayaa wax noqonaya ama muradali ama meel gaari oo Ismaaciil ahayn bidii markaa wareystay odayaashii markaas joogay marka waxa la dhashay sugtaa xaaja dawladda abid nin dhirba xaq u dugsaday dhaqashadeed meel wanaha maanta taree awdal haysata waa taaway wax walba way dheersadeen dayarsigii maanta markaa wuxuu keenay dhabu keenay maanta markaa in ree awdal ay calaacalaan oo mataqaanaa qayrkood ay bariyaan taasa keentay laakiin waxaan leeyahay dhalinyarta haweenka iyo aqoonyahanka ree awdal hadday isku geeyaan maskaxdooda iyo maalkooga iyo mataqaanaa muruqooga waxay noqon karaan nuclear bay noqon karaan waxay noqon karaan wax ummadda wax ka bedela waxay noqon karaan iftiin dadka ree awdal gaarsiiya meel wanaagsan maadaama markaa lagu xanto aqoon inaan leenahay dadka ree awdal lagu xanto inay yihiin dad aqoon leh aqoontu waa inay naga muuqato aqoontu waa inay noqoto mid dadkeena wax u qabata aqoontu waa inay noqoto mid dadkeena iyo dadkii ummadaha kaleba anfacda laakiin aqoontu hadday noqoto tool dad kale ku shaqaysto taasi waxay keenaysaa dhibaato ayay ku tahay shacabkayga ummadaha kale waxa u tahay horumar bay u tahay marka waxaan leeyahay wax walba waxay ka bilaabmaan base ka bilaabmaan maadaama markaa foundationkeennii hore oo yahay aqoon yahay aqoontu waa inay ummad kobciso maskaxda iyo dareenka siyaasiga ee ku jira qof kasta oo ree awdal inay kobciso loo baahan yahay
kor u qaado wacyigiisa siyaasadeed wacyigiisa dhaqaale wacyigiisa mataqaanaa dhinac walba kor u qaado weyn markaasaan gaari karnaa ama aan caawin karnaa ummado kale marka guntiga gabagabadii waxaan leeyahay reer awdalow u diyaar garooba halganka Awdal State diyaar u noqda maamulkiina iyo wadajirka ummadda reer awdal in laga shaqeeyo loo baahan yahay cid kasta oo doonaysa hadafkan inay ka qayb qaadato ama mataqaanaa diyaar u ah inay mataqaanaa waxaan laga midho dhaliyo waa inay eegaan danta guud baa ka weyn wax walba danta shakhsiga ah waxa weeyaan hal qof iyo laba qof reer awdal laga maarmo maanta ma jirto waxaynu u baahannahay dhammaantiina gacmaha isqabsanno walaaltinimada iyo wanaaggeena la xoojino aynu hore u soconno waxaynu doonaysaan u gaarno laakiin haddii aynu eegno qofba qofka kale eego oo aynu hareeraheena eegno oo aynu nabad ku jeesano wax meel aynu gaaraynaa ma jirto marka waxaan leeyahay walaalayaal gacmahaan isqabsanno cid kasta iyo qof kastaba Awdal State waa furan tahay ma aha Awdal State cid gaara ma aha qola gaara ma aha maxaan ku raacaa qoomiyad gaara waxa weeyaan qoomiyad ku abtirsata qof kasta oo u dhashay deegaanka Awdal State ama cid doonahado qabiil doonahado carabta ahado cid kasta oo degan maamulka Awdal State inta uu dhaxadkiisu yahay waa dad muwaadiniina oo reer awdala isla maanta xaq u leeyihiin in la doorto inay wax doortaan marka waxaan leeyahay walaalayaal haddii aad tihiin ummadii reer awdal meel kastoo aad joogtaanba u diyaar garooba halgankaasi gacmahan isqabsanno yaan loo kala hadhin yaan loo kala bixin hadafkeenu ha noqdo hadalkeenu ha noqdo mid inta haddaynu helno oo hadalkeenu mid noqdo hadafkeenu mid noqdo siyaasadeenu mid noqoto hoggaankeenu mid noqdo ummadda reer awdal waxay gaari karayaan si dhaqsiyo dhib yar bay ku gaari karayaan horumar degdeg gaarayaan intaasaan ku darmeeyaa waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu